بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دواده حلقة ديني سدحاد بوغا Practice and Progress كمدة سلسلة نيو كسبت إنجليش معلي نور أو halkii idinka sii wada dhammaan casharada kooraska afarta buug ee New Concept English oo dooban waxaad ka helaysaa kanaalka Wadsube qaybta playlistiga. haddii aad doonaysaa afarta buug ee New Concept English oo daabacan ayagoo original ah waxaad ka soo dalban kartaa nambarka kaga muuqda shaashada ayagoo lagugu soo diri doono delivery ama cargo meel aad joogtaba. waxaynu ka bilaabaynaa marka xalqadeenan saddexaad waxaynu ka bilaabaynaa unitka koowaad casharka koowaad. unit 1 waa cutubka koowaad lesson 1 casharka koowaad. A private conversation ومحادثة جارة. A private conversation محادثة جارة. A private conversation ومحادثة جارة أما وذا هذا جارة وذا شكيس جارة. Last week we جهرة I went to theater كانتلي. Last week we جهرة I went to the theater وحكلوكو صحينا تسهلو I went to the theater last week we جهرة. Okay, I had waxaan helay a very good seat مقعد ama kursi aad u wacan. The play riwaayaduna was very interesting waxay mid aad u xiiso badan. The play riwaayaduna waxay ahayd very interesting mid xiiso badan. I did not enjoy it laakiin ma jeclaysan. I did not enjoy it ma jeclaysan. A young man nin shabaaba and a young woman iyo gabadh dhalinyaro ah. A young man nin dhalinyaro ah and a young woman iyo gabadh dhalinyaro ah were sitting ayaa fadhiyay behind me dabadayda. They were talking loudly kor bay u hadlayeen. They were talking loudly kor bay u hadlayeen. They were talking loudly kor bay u hadlayeen. I got dabeedna waxaan noqday very angry mid aad u caraysan. marka I got macnaheedu waxay ka dhigantay asbaxtu qadbaan waxaan noqday mid aad u caraysan. I got waxaan noqday very angry mid aad u caraysan. I could not hear ma maqli karayn the actress dadka matalaya. I could not hear ma maqli karayn the actress nimanka matalaya riwaayadda. I turned round waan jeestay. I turned round waan jeestay. I turned round waan jeestay. I looked it waxaan u eegay at the man ninkii and the woman iyo gabadhiiba angry saacada leh. I looked it waxaan u eegay at the man ninkii and the woman iyo gabadhiiba angry saacada leh. I could not They did not pay any attention. They did not pay any attention. They did not pay bixin bay ka dhigan tahay any attention wax digtooni ayay macnahan lafdi ahaan ka dhigan tahay. laakiin macnaheedu waxa weeye they did not pay any attention. dheg imay digin. Okay, in the end wa finally ama akhiran ugu dambeyntii I could not bear it waan xamili waayey. I turned round again mar labaad baan jeestay. I turned round again mar labaad baan jeestay. I can't hear a word erey ma maqli karo. I said ayaanu idhi angrily saacada leh. The young man ninkii yaraa said wuxuu yidhi rudely isagoo si bila adaaba u hadlaya it is none of your business war hawl kuu taala maaha. It is none of your business hawl kuu taala maaha. The young man ninkii yaraa baa said u yidhi kelmadda rudely si adaab darra ah isagoo sii watana wuxuu yidhi this is war arrintan aanu ka hadlaynaa a private conversation waa muxaadasa noo gaara. This is a private conversation waa muxaadasa noo gaara. Okay, waayahay sidaynu markaas ku baran doono cutubkan waa comprehension, precis and composition. su-aalaha waad ka jawaabaysaa. comprehension waa fahan, precis waa soo koobis, and composition iyo curus. marka comprehension precis waxay soo koobis yani fahan, and composition iyo curus isku jira. marka su-aalaha ka jawaabto macnaha number u samayn maysid dabadaas ugu qabanaysaa. marka waxay noqonaysaa sheekadii oo gaaban, fahankaagii curusna way noqonaysaa. waa ku comprehension precis baa loo akhriyaa precis macnaha waa fahan macnaha soo gaabin, and composition iyo curus. answer ka jawaab these questions su-aalahan in not more than 55 words 55 erey waxaan ka badnayn. Where did the writer go last week? xagee buu the writer ninka writerkii go qabtay last week hore? He went to the theater. siyaasad oranaysaa theater ku qabtay. Did he enjoy miyuu ka helay the play riwaayadii or not mise kama helin? waxaad oranaysaa markaas he did not enjoy it kama helin. Who was sitting behind him ayaa daba fadhiyey. A young man and a young woman were sitting behind him ayaa daba fadhiyey. Were they talking loudly ma kor bay u hadlayeen
or were they talking quietly mise mid bay u hadlayeen they were talking loudly kor bay u hadlayeen okay could the writer here ma maqli karay the actress jilayaasha ama matalayaasha or not mise ma maqli karay such markaa he could not hear okay did he turn round wuu jeestay or not mise ma jeesan wale markaa he turned round wuu jeestay what did he say muxuu yiri markaas wuxuu yiri I can't hear a word he said angrily okay did the young man say ninkii ama wuxuu yiri the play is not interested waad xiisa malaha or did he say mise wuxuu yiri this is a private conversation wuxuu yiri he said wuxuu yiri this is a private conversation intaas dabada isku qabanaysa numberadana waad ka tagaysaa sidii sheekada u qoraysaa marka waxay noqonaysaa comprehension pre-say and composition okay waayahay key structures waa grammar key ama points of grammar noqdada grammar key ku jira casharka waxaan ku baran doonaa cutubkan oo dhan word order macnaha tartiibta ereyadu ay u kala horeeyaan ama loo dhigayo in simple statements jumalka khabariyada ama jumalka yani warbixinta ah ee fudud wuxuu markaa jumlada xambaarsan simple statement aad maqasho yani one idea half credit sheegaysan wax ka badan sheegay wuxuu markaa statement warbixintu tell us about something waxba inoo sheegtaa wuxuu a statement warbixintu ama jumla khabariya tell us about waxa inoo warantaa something shay all demand the sentences jumalka all demand the sentences jumladaha in the passage sheekadan gaaban ku jira ama qidcada ku jira are statements waa jumla khabariya each of these statements is each of mid kasto kamida these statements warbixinta contains waxa ay xambaarsan ama yaxtawi waxa ku jira one idea half credit each statement warbixin kastaana tell us about waxay nooga sheegaysaa tell us about tukhbiruna waxay nooga sheekeynaysaa one thing hal shay a statement hadda warbixinta ama jumlada ama khabarka that tells us about one thing hal shay waxay nooga sheega is waxa la oranayaa a simple statement ama a simple sentence jumla basiida ama jumla mufida kaliya haddaba the order tartiibta of the word ereyadu in a statement jumlada khabariga ku jira ama jumlada warbixinta ku jira is very important aad bay muhiim u tahay look at bal waxaad eegtaa these two statements labada warbixinood look at these two statements labada warbixinood they both labadoodaba contain waxa ku jira the same word ereye isku mid ah but laakiin they do not mean macnahoodu ma aha they don't mean macnahoodu ma the same thing wax isku mid ah the policeman arrested the thief the policeman ninkii booliiska ahaa arrested wuxuu yidhi the thief tuugii marka meesha sharci ka jira dowladda ka jirto dee booliiska ayaa tuuga xidha laakiin haddii khayra qaanuun ama khaarij alqaanuun ay tahay ama meesha out of the law ay tahay the thief arrested the policeman tuugii baa booliiska xidhay waa illogical marka sentencku haddaan u macquul ahayn ama macquuliyaadka ka fog yahay lama odhanayo in english biluqa ingiliisiya lama odhanayo waa sentence that is out of the question torun baa sax markaas the thief arrested the policeman waa ingiriisi saxa sida uu dhigan tahay laakiin waxa la eegayaa macnaha sensibility-ga ama sensibility aqal galnimada waxaas yani meel sharci ka jiro qof tuugi ma xili karo yani nin police waayahay a simple statement macnaha word fudud ama jumla khabariya kan waxay yeelan kartaa six parties markay u badan tahay 6 erey bay ka koobnaan kartaa 6 erey bay ka koobnaan kartaa oo ficil iyo faacil iyo mafcuul iyo daraf iyo sifo waxyaabo noocaas ah ay ka koobnaan kartaa laakiin markasta ma aha inay 6 leedahay labay noqon kartaa mid bay noqon kartaa hadii macnaheedu command tahay ama amar oo kale ay tahay okay wuxuu ku leeyahay simple statement word of kan waxay yeelan kartaa 6 parts markay u badan tahay 6 qaybood but laakiin macnaheedu taa ma aha it does not always have inay markasta leedahay so many wax aad iyo aad u badan study baro the order tartiibta of the word ereyada in the columns ku jira waaxaha on page 14 boga 14 waa la qaybiyay xaashida waa la qaybinay column 1 column 2 saas oo kale now that waxaad maanka ku haynaysaa column 6 column-ka lixaad oo wana ama time-ka inoo sheegaya ama darfu samaanka inoo sheegaya can be inuu gali karo at the beginning of the or ama at the end of the statement macnaha warbixinta xaggeeda dambe ama warbixinta xaggeeda hore macnaheedu haddaan si yaro fasida kugu sheeg wax weeyaan last week I went to the theater week hore theater-kan tagay iyo I went to the theater last week sidaana waa la odhan karaa ka last week baa xagga dambe la marin karaa marna xagga hore loo qadimi karaa laakiin labadaba la wada dhigi maayo oo malayn sida loo dhigay labadaba wuxuu ku exercise waa la lisyo rule 7 columns waxaad yani jeexjeexda waraaq 7 columns 7 xubnood ama 7 waaxood on double sheet xaashi macnaha xaashi laba ah of paper oo waraaq on a double sheet of paper xaashi laba qaba adda xagga sare of each column ee column kasta ama wax kasta waraaqda kamida right ku qorda number strooyinka ama kow laba
and the word is here ereyada given lagu siiyay on the table jantuska ama sax ama yani jantuska ama tusaalaha copy out naqil copy out guri oo qor the rest of passage qadacada waxa ka soo haray put the word is waxa dhigtaa ereyada of each statement jumlada khabariga ah in the correct column ku saxda in the way adoo raacaya habka shown lagu tusay in the table jantuska ama shaxanka ama macna muuqaalka shaxda ah ka wax ku yiraahdo fiirso when waa article of time badanaysa who haduu faacilku qof yahay huba u taagan oo waxay ku imanaysaa su'aashiis who man hadii shay macna faacilku yahay waa which iyo what labada Soomaaliya action macnaheedu waa verb-kii ama ficilkii who haduu mafcuulay qof buu noqon karaa which ama what buu noqon karaa shay u taagan how waa kayfiyada ama darful kayfiya ayaa la yiraahdaa where waa darful makan macna halkii waxa iska dhaceen when waa darful samaan marka labada meelood when ay taalo mid baad ka tagaysaa midna waad dhigaysaa okay last week hore I went to Hantigi to the theater but the last week word of time was when okay I was who or subject here went waxa weey masalan ka ficilkii ama actionkii okay to the theater waa halku tagay or where did he go he went to the theater ku tagay I had a very good seat macnaheedu waxa weey I was who or subjectkii had was verb ko actionkii a very good seat na maxay noqonaysaa kursi aad u fiican mafcuulkii wixii la helay waa which oo kale the player was very interesting waxay mid aad u xiiso badan the player was very interesting mid aad u xiiso badan bay ahayd waa tusaalihii I did not enjoy it much alaysan a young man and a young woman were sitting ayaa fadhiyay behind me dabadayda they were talking loudly kor bay u hadlayeen marka inta adigu markaad ka daba qaadato ama tusaalaha qaadato wuxuu ku yiri you will use waxaad isticmaali doontaa markaas layliska bida taas waa aadi marka waa laga shaqeeyay taas wuxuu ku yiri you will use waxaad isticmaali doontaa the 7 columns todobadii waaxood again mar labaad for this exercise layliskan there is a line under each word erey kasta waxa hoos marsan line ama khad or ama group of words koox kasto eraya in the statements oo ku jira jumalka macna warbixinta bido xaq hoose the words macna erayadu are not maaha in the right order tartiibti sax ahayd are not maaha in the right order tartiibti sax ahayd arrange them isku habe correctly si sax in the 7 columns todobada column ku habe look at this example tusaalahana fiirso look at waxaad eegtaa this example tusaalahana I anigu last year sanadkii hore to America went taa isku habe baalig the correct order tartiibta saxdi waxa weeye I oo who taagan went oo actionkii oo verbkii oo ah tagitaankii to America waa where last yearna waa when marka sidaas uma talagelinaysa khaanadaha ku habeeyne bal adoo fiirso oo ama waxa oran kartaa last year sanadkii hore I went to America marka isku habeeyo simply number 1 the film I enjoyed yesterday and was a film aan ka helay shalay oo kale I enjoyed one ka helay the filmkii yesterday shalay the news work listened to I carefully marka I listened waxaan u dhageystay the news workii carefully taxadir badan the man ninkii played the pianadii buu garaacay aaladii music ahayd weel si fiican okay the children arruurtu played waxay ku ciyaareen games ciyaara ayay ku ciyaareen kuwaadi simiri ayay ku ciyaareen in their room qolkooda yesterday shalay he opened wuu u furay the door albaabkii kuwaadi simiri leh he left immediately dhaqso u baxay okay he planted wuxuu ka beeray a tree gate in the corner of the garden beerta cilifkeeda okay waa yahay and he read u akhriyay the letter waraaqdii quickly si dhaqsaabu wax in his office xafiiskiisa before lunch qadada koor this morning Saka I borrowed waxaan ka soo amaanaystay istaartu waxaan ka soo amaanaystay book baan ka soo amaanaystay from the library maktabada the cook ninkii tabakh ahaa spoiled uu kharibay the soup maraqii we stay one iska joognaa at home guriga on Sundays maalmaha axada and okay there are a lot of people dad fara badan baa taagan at the bus stop ka ama meesha basku istaago the little boy inankii yaraa eedu uu cunay an apple tufaaxi greedily si macnaha kulul buu cuno erweynaana ama yara kulul in the kitchen madbaxa this morning Saka okay she draws waxay wax u sawirtaa beautifully si qurux badan I like one jecelahay music very much aad iyo aad
okay waayahay they built waxay ka dhiseen a new school cusub in our village xaafadeeda last year sanadkii hore the match tartankii ama mubaaraadkii ended waxay dhammaadeen at 4 o'clock afartii she received waxay ka heshay a letter waraaq from her brother walaalkii last weekii hore markaasaas ma isku habeynaysa way casharkii koowaad baa halkaa inoogu dhammaaday waxaynu u gudbinaa lesson 2 casharka labaad lesson 2 casharka labaad waa breakfast ma quraacda or lunch mise waa qado breakfast waxa weeye ma quraacda or lunch mise waa qado or lunch mise waa qadadii kan waxaynu ku baranaa markaas macnaha key structurekiisa waxaynu ku baranaynaa ficilka la yidhaha present continuous tense oo macnaha mudaarica iyo simple present tense oo ficil maalin walba jooga ama mar walba jooga ah ama inta badan jooga wuxuu ku yidhi okay breakfast ma quraacda or lunch mise waa qadadii it was Sunday axad bay ahayd I never get up anigu marna ma kaco early goor hore on Sundays maalmaha axadda wuxuu yidhi it was Sunday kaanat يوم الأحد maalintii axad bay ahayd I never get up ma kaco marnaba early goor hore on Sundays maalmaha axadda I sometimes mararka qaarkood stay in bed waxaan iska jiifaa ama aan sariirta ku nagaadaa until lunch time ilaa hadhimada last Sunday axaddii hore I got up waxaan kacay very late goor dambe last Sunday axaddii hore I got up waxaan kacay very late goor dambe I looked out waxaan ka qoraansaday wax oo aan ka fiirsaday of the window daaqada it was dark mugdi bay ahayd it was dark mugdi bay ahayd ama madow bay ahayd outside dabadu what a day ما هذا اليوم ما أسوأ اليوم ورمانت حما بيلادن قالوا مانت روح قدا يلادن what a day لكن مسلم كأنه كمشي okay يقولوا what a day I thought وعم كل فكروني ورمان بس محي what a day هلا ما أنتوا محي I thought أيام كل فكري أما تحدثت مع نفسي نفتي اللي بنقول شيء كيستي it's raining again والروبا مرة بداية it's raining again روبا بداية just then بدنا إنتاس مكذب just then إسلام مركز كذب the telephone rang telephone كبار دعي it was my auntie Lucy قف كوحوا ما أدري Lucy بدنا هذا بلو في رسالة وهذا شيء I've just arrived by train حتى ترين كدري I've just arrived حتى كويمي by train she said أيتلي يدو سي ودنا حتى I'm coming وحنا نسعد to see you أركتدينا بدنا I said وحنيدي but I'm still having breakfast ولا كون قراعنيا she asked هدنا waxay isoo sheegay what are you doing ماذا تفعل maxaad qabanaysaa what are you doing maxaad qabanaysaa I repeated بدنا قلت ثاني مرة labaad baan idhi I repeated waxaan ku celiyay oo aan idhi I'm having breakfast oo quraacanayaa dear me she said gacaliya bay tidhi dear me she said waxay gacaliye kii aan jeclaayay ugu dheeraayo do you always miyaad markasta gadab kacdaa ama gadab kacdaa soo leed goor dambe it's 1 o'clock waaba koodii okay comprehension brisay and composition waa in comprehension brisay soo koobistii fahanka and composition iyo curus su'aalaha ka jawaabaysaa sidaan hore kugu soo sheegay dabadaad isku qabanaysaa nambaradana waad ka tegaysaa sidii casharkaad u qoraysaa answer these questions su'aalahan ka jawaab in not more than waxaan ka badnayn than 50 words content does the writer always get up ninka sheekada inoo sheegay ama wuxuu kacaa maalin kasta early goor hore on Sunday saxada or does he always get up late mise goor dambe buu kacaa marka he gets up late goor dambe buu kacaa on Sundays maalmaha xada did he get up miyuu kacay early goor hore la Sunday xadii hore or did he get up late marka he got up wuxuu kacay late goor dambe who telephoned yaa soo garaacay then marka his auntie Lucy edadii Lucy baa telephoned him soo garaacday had she arrived by train or had she come on foot maluk bay ku timi mise train bay ku timi wala marka she had arrived by train okay was she coming to see him ma booqashadiisa u socotay miyay soo eegaysay ornad musamaya sida marka she was coming to see him did he say me wuxuu yiri I'm still having breakfast wali waa quraacanaya or did he say me wuxuu yiri I'm still in bed wuxuu yiri I'm still having breakfast he said said was his auntie very surprised me after not musamana yaabin she was very surprised okay what was the time gormay ahayd it was 1 o'clock koodii bay ahayd key structureska ama nuqdatul grammarka ama point of grammarka meesha ku jira waa now wixii imika dhacay ficila often iyo always waa alaaba ama inta badan and always iyo markasta
study these statements bal weerahan baro and questions su'aalahan marka simple present tense iyo present continuous tense ka dambeeya injida waxaan ka dambeeya waxa noqonaya simple present tense korana waa present continuous tense oo waa maadi waa mubaarac ficilkii oo socda oo imika socdo oo imika dhacaya kana waxa weyn inta badan wax dhacaamo yani markastaba wax dhaca now waa wixii imika dhacaya often and always na waa everyday tense ama simple present tense now na waa present continuous tense these sentences are from waxa laga soo qaatay the passage qadcada ama sheekada yar gaaban it is raining tumdiru samaa al'an okay I'm coming to see you it's raining for badaya haddu daaya I'm coming to see you waxaan u socdaa booqashadiina I'm still having breakfast wali waan quraacanaya what are you doing maxaad qabanaysaa okay here are halkan waxa ku yaala some more sentences word dheeraad oo cashirka ku jirin marka maxaa kamid ah he is still sleeping wali hurda we are enjoying our lunch qadadii baan ku istiraxnaa ama aan cunaynaa I'm reading in bed sariirtan wax ku akhriyaya aqra'u ala sariiri al'an imkan sariirta wax ku akhriyaya na'kulu da'am ama na'kulu ghada al'an haddaan qadadii cunayna saasi ka dhigan tahay marka kuwaas oo dhan waxa la present continuous tense marka present continuous tense denotes wuxuu actual present joogidaba often and always na waa habitual or repeated actions wuxuu muujinayaa hawlo soo noqnoqonaya ama inta badan dhacaya I never get up weligay ma kaco early goor hore on Sundays maalmaha axadda I sometimes marka qaarkood stay in bed waxaan sariirta ku nagaadaa amaan iska jiifaa until lunch time ilaa harimada I sometimes stay in bed sariirta waxaan iska joogaa until lunch time ilaa harimada ayaan iska joogaa okay do you always miyaad markasta gadabkaadaa soo late goor dambe he rarely manaa waxa yaro naadira ayuu gets up kacaa before 10 o'clock tobanka he rarely gets up waxa yaro naadira ayuu kacaa rarely waa naadiran qaliilan he rarely gets up naadir buu kacaa before 10 o'clock tobanka horteed we frequently anagu inta badan have lunch waxaan ka qadaynaa at this restaurant hudaalkan do you ever read in bed weligaa sariirta wax ma ku akhriday do you ever read weligaa ma ku akhridaa had iyo jeer in bed sariirta kan waxa la markaa simple present tense ka simple present tense buugi koowaad sidaan ku soo sharaxnay faa'ilku haduu yahay maana he iyo she iyo it iyo asmaada ama nounska u dhigma fal kasta wuxuu qaadanayaa s iyo es midkood ayuu qaadanayaa haduu faa'ilku laakiin yahay he iyo she oo ah huwa iyo hiya iyo it oo qayr caaqila ayuu markaas wuxuu qaadanayaa s ama es marka su'aal loo bedelay hadalka noocaasana oo das iyo do la raaciyo ama loo qadimo ama dhexda does not la geliyo ama do not la geliyana waxay noqonaysaa in laga tago st iyo st lagu daray waxa u dayma la'aan exercise oo laylis write out guri oo naqil these two paragraphs labadan paragraph waa faqrad isku ujeedo ka hadlaysa again mar labaad give waxaad bixisaa the right form shakliga saxda of the words ereyada in brackets ku jira qowska baadoo fiirso markaas qaar baa sidooda ku saxa oo sidooda uga saaraysa qaarna waxa lagu yara daraya I'm looking out of my window daaqada ayaan wax ka eegaya I can see waxaan arkaa some children caruur baan ku arkaa intii wadada the children caruurtu yalcabuuna waxa ciyaareen kuratul qadam halkaad ka oran lahayd sidee loo yiri markaas the children caruurtu are playing waxay imika ciyaareen football kubadda cagta they always iyagu markastana play waxay ciyaaraan torowa present continuous they are playing bal oranaya laakiin tadaba sideeda looga saaray qowska they always play waxay markasta ciyaaraan football kubadda cagta in the street macnaha wadada ay ku ciyaaraan now had a little boy nearby is kicking wuxuu laadayaa the ball kubadda another boy inan kalena is running after him waa uu daba ordayaa but he cannot catch him laakiin ma qaban karayo waayahay kaasi waa paragraafkii koowaad paragraafka labaad waxa weeye I carried my bags into the hall wuxuu leeyahay I carried my bags shandadahay baan u xambaartay ama u qaaday into the hall hallka xaggiisaan u qaaday hallku waa hallka weyn ama saala ayaa carabiga la dhahaa dabeedna what are you doing maada tafcal my landlady asked ayay gabadhii guriga lahayd weydiisay what are you doing maxaad qabanaysaa my landlady asked ayay weydiisay gabadhan guriga kaga jiray landlady iyo landlord baa la kala yidhaahdaa waa rabbul bayt iyo rabbatul bayt oo kale my landlady asked gabadhan guriga ka jiray bay weydiisay I'm leaving Mrs. Lunch dabeedna waxaan ku yidhi I'm leaving waan babaxaya Mrs. Lunch I answered ayaan ugu jawaabay
dabeedna waxay tii why are you leaving she asked limaada tadhab maxaad u baxaysaa xageed qabanaysaa why are you leaving she asked ayay weydiisay you have been here halkan waxan baad ku sugnayd only a week muddo usbuuc kaliya you have been here halkan waxaad ku sugnayd only a week muddo usbuuca ama toddobaada a week too long Mrs. Lynch I said dabeedna waxaan idhi buu yidhi a weeku too long wuu dheeryahay Mrs. Lynch I said ayaan idhi buu yidhi there are so many rules qawaaniin badan baa jirta there are waxaa jira too many rules qawaaniin aad u badan there are waxaa jira too many rules qawaaniin aad u badan in this house gurigan هناك يعني قوانين كثيرة في البيت أي نقونيسا my friend صاحبي never come سيدا القصة رسا قوسك never come to visit me مسو سيارتان dinner عشاء is always مركز تاد 7 o'clock واتدبدا so سيدا I frequently بقى ما انت بدن go to bed وحن سيحدا هنجري حالا جوعان هاي ولا حالا أنا جوعان يعني أنا جوعان وقاجونية مركز قولنا سيدا القصة رسا you don't like noise buuqa ma jeceliyo qaylada soo ay reerli marka in yaro naadira ayaan listen dhageysta radio idaacada sideed qowska uga saaraysa wax laga bedeli maayo the heating macnaha kuleeliyihina ama heaterkina doesn't work ma shaqeeyo so sida darteed I always markasta feel cold qabowga igu badan dareema this is a terrible place waa meel aad ugu liidato for a man like me ka rajulin macnaha rajul for a man لرجل كأنا أنيقو كلا أبوش this is a terrible place هذا مكان زي أي نقولنسا for a man like me معناه لرجل كأنا رجل أنيقو كلا goodbye Mrs. Lynch معناه مع السلامة Mrs. Lynch ويح انت أصنعون كشكيني قيب تبيدة لايلس كان نوت واحد أفر سنة the position محل كايدا عيان of the word سريادة in italics فرطة جيفتك قرآن in this sentence وران كتيرة وحلا إلى arphabets of frequency ولا إلى arphabets of frequency تكرارا ومرارا بشيئا so نقضي so مركا واحد عن next to the subject هلك فاعل كوي حكته but if the verb لكن the verb is two words ولبيري كوبين هاي they are placed arphabets أما ضرفيدا وحلا دقيقة between the two parts of the verb لبدا قيمة verb كده ويكون نود في the position محلك of the word سريادة in italics فرطة جيفتك قرآن in these sentences وردهن my friends أصحابتي never come أبدي ما دام to visit me سيئيسو سيارتان I frequently go to bed وحن سيعلا هنجري جوعانا أنا قاچوني I rarely نادر بان listen لغيستات في الراديو إذاعة I always feel cold قبو بان هذه شرط ريما I never get up early on Sundays أنا مرنا بحد مكة عقور هوري I sometimes stay in bed وحن سكتشي until lunch time إلا هرمدا وضركتان next to the subject لما وضع دعين لكن سيب كاتولا واحد بنوتك كوبيني I'm always وكلا هبديتاي I'm going وكلا هبديتاي ولواسي كلا دحديسة ويقول رأي قرد these sentence وران again مرلبات put the word this واحد اكتاريدا in practice كتشرا قوسكا in the right place كوبتا تصحها she answers my letters مركا she rarely answers my letters نادر بوراقاي قسو جوابتا we never work weligay ma shaqeyno after 6 o'clock lixda wixii ka dambeeya the shops dukaamadu always markasta close waxay xidmaan on Saturday maalmaha Saturday afternoons galbaha Sabtida do you always go to work meel shaqo tagtaa by car oo gaari la socda our teacher macalinka iyagu frequently alaaba collects wuxuu naga ururiyaa our copy books bugaagteeda qoraalka we sometimes markaa kooda spend waxaan ku qaadanaa our holidays fasaxayga abroad kharajka ama dabadda I often buy inta badan waxaan iibsadaa gramophone records recordada dhigaal la gashado gramophone records waa recordada dhigaal lagu dhageysto okay do you ever taasina waxaan u do you ever miyaad abidka buy iibsataa gramophone records recordada noocaas ee dhigaal la gashado taasna waa special difficulties waxaan ku baranaynaa waxa loo yaqaan taajubka ama jumla taajubiya oo kale ku baranaynaa special difficulties wada day waxaan ku soo barnay عشر باراجراف كواد اللاين كشناد عشر كينا لبعض وكان كان كورن مثلا instead of saying بدلا أما نقول هل كان كورن it's a terrible day ألا ما أنت حنا زي هذا يوم سي ما لحم ما شرته لكن شيء عن سين يقوي وكان شيء واحد نورن كنا وده terrible day ما أسوأ اليوم يعني ما أنتوا ألا ما أنتوا ومحي
okay this is a beautiful picture الله ما أجمل هذه الصورة محا صورة كقروح بدن وحنا أوران كرنا كفي عن أما كل معان what a beautiful picture أما وحنا أوران كرنا what a beautiful picture this is يعني واحد الوصمية أنت بدن وحنا لو يقان تعجب كإنجليزية وديها وبالوصمية الله هردقة وهي مركز تسألها كتب قادنه exercise والليلس write the sentence again جملة مر لبعض قر each sentence جملة كسر must begin with وين كبلا وانت ودوات كلمة دوت ليلهدو this is a wonderful garden هذا حديقة رائعة وين هذه حديقة رائعة بكلمة الله ما ربيت قروح بدنا وين أما جميل وأنا سمعك what a wonderful garden this is what a wonderful garden this is ما أجمل ما أروع ما كفي عن بيرتن this is a surprise ويا عجبا بين قلنا ساتاسي ويا عجبا ونكوحيون what a surprise this is برونسا he is causing a lot of trouble what a lot of trouble he is causing على إنكم مشكلات بدنا they are wonderful actors what wonderful actors they are she is a hard working woman وقبل دال بدن بالليل على قبل دال بدن ولا قد what a hard working woman she is برونسا it's a tall building ما أدول هذا البناء وكذا انتهى it's a tall building الله رزقه دارا what a tall building it's a terrible film وفيلم أدو لتسيئة what a terrible film it is you are a clever boy أنت يعني رجل ماهر الله ما يعني أبرعك ما كا حريفسن ما كا ماهرسن كمان you are a clever boy what a clever boy you are she's a pretty girl ما أجمل هذه الفتاة ما إن أنت كقروح بدن she's a pretty girl he's a strange fellow والرجل قريب أما ولد قريب what a strange fellow he is سأصل ورانيا هكذا ينقول لما 10 كلمة لبعض 10 كلمة تتحدث نقول بيننا please send me a card وحلا please send me a card فضلا واحد يسوي كتاب بوستكارد please send me فضلا يسوي كارد بوستكارد بعد يسوي بوستكارد كا دينا أصور بكرية لأن دينا أوراق الرسالة ده لقو قرأ يقول بوستكارد ده always مركزته بوستكارد ده أما بحلا أصور ده لا يسودره always مركزته يسبول واحد قريبا ما يهول اللي فصح حاجة لا استمر حاجة هوري I went to وحن تجي إيطاليانية لا استمر حاجة هوري I went to إيطاليانية أنتجي I visited ثم صرت وحن سيارتي museums متاحف كما كرياه داير دكانك and said بدنا وحن يحفريستين public gardens beeraha caamka ee dawladda ee dadka ka wada dhaxeeya waa taadan shirka daxsoono kale loo oran jiray berigii Soomaaliya a friendly waiter mudalab yani saaxiibtinimo leh mana a friendly waiter nin khaadimo oo saaxiibtinimo leh ayaa taught me wixii baray a few words kalimaat recent of Italian then he lent me dabadna wixii amaanaysiiyay book then he lent me a book buu amaanaysiiyay I read waan akhriyay akhriska isbedelay marka maadi ay tahay oranay I read waan akhriyay kulkuna read bay ahayd oo akhri ah dadnaxti I read waan akhriyay a few lines dhowr sadar but I did not understand laakiin ma fahimtu a word erayna kamaan fahmin okay every day maalin kasta I thought about waxaan ka fikiray postcardada my holidays fasaxaygina pass it quickly taxay ugu dhaafeen but I did not send laakiin ma arsaltu uma dirin any cards wax waraaqaye card macna postcard to my friends ila asdiqay ama asxaabteedii on the last day maalintii ugu dambeysay I made waxaan gaaray big decision macna casiima kabiira ayaan gaaray go'aan weyn baan gaaray I made ma waan sameeyay runtii la oran maayo I made waxaan gaaray big decision go'aan weyn I got up waxaan kacay early goor hore aan kacay and bought waxaan soo iibsaday 37 cards 37 postcard I bought waxaan soo iibsaday 37 cards 37 postcard I spent dabadna waxaan ku qaatay the whole day maalintii oo dhan in my room qolkayga but I did not write laakiin ma katabtu ma qorin a single card xabad waraaqo oo kaliya ama postcard kaliya waxba kuma qorin dhammaan afcaasha ku jirta halkaas waa simple bas ilaa marka laga reebo yani sentence-ka ugu horeeya postcards always spoil my holidays hadii jeer waxay ka qaribaan holidayga ama fasaxayga marka spoilshaas waa simple present tense
way comprehension pre-say and composition balaynu ka jawaabna markaa su-aalahan waxaynu u qoraynaa sidii curiska marka waxay ka tarjumaysaa fahamkeennii inshaana way inoo tahay ama insha aynu samayno ama curis aynu samayno curis waa sheeko la curinoo la bilaabayo waxay ka timi ficilka la yidhaha compose way pre-sayna waa zamari oo soo koobis comprehentionna waa fahamkii waxay ka timi falka la yidhaha comprehend bay ka timi answer this question su-aalaan ka jawaabay not more than 50 words contonary waxaan ka badnayn do both cards always spoil miya kharibaan the writer's holiday fasaxa writerka or not misamaya answer yes they always spoil the writer's holidays where did he spend his holiday halkeebuu ku qaatay fasaxiisii last summer xagaagii hore waxaan sameynaa he spent his holiday in Italy last summer what did he think about every day muxuu ka fikiri jiray he thought about wuxuu ka fikiri jiray postcards did he send any cards wax kale to his friends asxaabtiisa or not musamaya he did not send any cards to his friends or not sir how many cards did he buy imsuu iibsaday card on the last day maalintii ugu dambeysay he bought wuxuu iibsaday 37 cards 37 postcard where did he stay all day maalintii oo dhan halkuu joogay he stayed in his room qolkiisa ayuu joogay all day maalintii oo dhan did he write any cards or not miyuu wax qoray no he didn't write any waxba ma qorin wax alla wuxuu qoray ma jiro key structures waa point of grammar ama nuqdatu naxwa fi daras cashirkeena waxaa ku jiray macnaha oo ka saddexaada dhammaan afcaashu waa maadi simple past tense baa la yidhaahdaa ama ficil maadi caadiya what happened maxaa dhacay maladii jara maladii xadas maxaa dhacay read this short conversation muxaadasadan yar ama wada hadalkan akhri this short conversation muxaadasadan gaaban pay close attention to fiiro gaarasii the verbs falalka in italics farta jiifta ku qoran pay close attention fiiro gaarasii to the verbs afcaasha in italics farta jiifta ku qoran ama farta yaryar ku qoran pay close attention each mid kasta of these verbs falalkani tells us wuxuu inoo tibaaxayaa ama inoo sheegayaa what happened wax dhacay mar hore dhacay policeman nin booliis ayaa wuxuu la kulmay accident dabadna wuxuu did you see ara'ayta miyaad aragtay the accident shilka sir sayidi did you see miyaad arkaysay the accident shilka sir sayidi ninkii baa yes I did nacam araahu waan arkayay the driver of that car baabuurka ninka wadaaka ayaa hid ku dhuftay ama duqeeyey that post birta leedka ama sabada leedka obadeer ee hunaag ku taala meesha fog obadeer waa meelaan caynayn oo qeyr muayina oo ka durugsan laakiin obadeer halkaas postna waxa la yiraahdaa mar boostada marna wax weeyaan baasha birta leedka ee dheer ama biitooga police what happened maladi jara maxaa dhacay dabeedna ninkii baa yidhi a dog ay baa ran across ka tallaabay cabara kalbun ay baa ka tallaabay darawal wadada and the driver ninkii darawalkaana tried wuxuu isku dayay to avoid it inuu ka joojiyo the car baabuurkii suddenly si lama filaana ama fawri ah came towards me xaggaygu soo kacay it climbed on wuxuu soo fantay wuxuu soo fantay to the pavement rasiifa shaaric ama dariiqii halkii dadku marayay and crashed into dabadna wuxuu duqeeyey and crashed into wuxuu duqeeyey that post tiirka isaga ama birta leedka ama tiirka masaajidka dhaadheer waa la odhan karaa post policeman what did you do maladii facalta bacdayn maxaa dabadna samaysay ninka wuxuu markaa ay ran across cabartu cala dariiq ama waan macnaha ka tallaabay dariiqii the street wadadii baan ka tallaabay after the dog ayga dabadii I ran across waan ka tallaabay aan ordaya the street wadada after the dog ayga dabadii policeman ninkii baa yidhi why did you do that لماذا فعلت كذلك محسها وسميسي were you afraid كنت خائفا ما واحد كبغاني سوف تكار بابورك انت وحولي I wasn't afraid of the car ما كنت خائفا عن السيارة معنا أما من السيارة كمان بغاني I was afraid of the driver كنت خائفا وحن كبغاني من السائق ننك الدرولك the driver ننك الدرولك قطع ودوحو كسو الدقي of the car baabuurkii ka soo digay the driver ninkii darawalka godad wuxuu ka soo digay of the car baabuurkii and began suma bada shouting at me inuu igu qayliyo igu bilaabay and began shouting at me igu bilaabay he was very angry with me wuu carooday you see you understand waxaad fahmaysaa way ka dhigan tahay it was my dog ayga yani mushkilada sababay inuu ahaa kana kalbuliya inagu ma dhaqan ayda
لكن معناها يقولون قولي كستوى حتشوجة أي وصاحب كذا دبتة ولما مكا أفعاش فرت تجيبتك قراني وعينو شيء سمن مادي وقت التجي access والله ليش look at the passage قد عدك please send me a card لا يلاحظوا أما فضلا كارد يصدر put a line underline house مري all the verbs لما أفعاش وتلاش إنه شيء what happened وحقعي what happened وحي كود عاي to the writer نيكا قراجة when he was on holiday مركو فصح كتير أما عضلة كتيري in Italy في إيطاليا طليانية وياهي in طيب تلباد ولكن give واحد كنت the correct form شكلك صح of all the verbs دمان أفعاشين براكتس غوز كتيرة do not refer لا ترجع هكون نقول مرجع كديجان وترى أنت باسج قد عادة أنت اللي finish text إلا لازم كده ما يسو وعشر كنا لفتي سي قال لا استمر حاجة جوري I went to تلكليان كانتني I visited واحد سيارتي museums متاحفك and said بدنا واحد فريستي in public gardens بيرها أنك a friendly waiter مدرب صاحبتي نمالي أيا taught me إبراي a few words of Italian كلمة كوبان وطليانية then he lent me a book بيامانيسي I read one a few lines line but I did not understand لكن ما فهمت a word أري ما فهمين every day مالين كستوى I thought about وحن كفكري تري postcard هذا يعني every day I think وان كفكر وين قنصة لكن بريجا مالين كستوى حن كفكري about postcard هذا my holidays first حاجنا passed quickly تخسر يقول دافي but I did not send لكن ومدرين any cards واحد postcard to my friends أصحابتي اللي ومدرين on the last day man تقول me say I made واحد قاري big decision go on way I got up early قرن كعي and bought واحد سويب سدي 37 cards تطبيق postcard I spent واحد كوقاتي the whole day man تيو done in my room قل كيجا but I did not write لكن ما كتبت ما قرين أما a single card كليه تاسوا مد 10 كلمة كاملة والولاد دي بصحرهم بوجي إيجين لكن كانوا عمدي نقول عصب هذا وفيرسو كيف واحد كنته the correct form شكل الصح ده of the verbs of عاشة in practice كل تقاوس in the passage كذا عدن إمك بيلو حقوسه each verb فالكستوكوا كامدي مستلا سوينو نوشيجا what happened واحد عاي ولا دو فيرسان كاغا شقية مركز my friend Roy صاحب روي died مات صديقي روي في سنة الماضية سنة تكتي أيو بنتي he left me وحي قتلي وحي قتلي his record player record كيراي اللي دقيسان شري عجلة اللي قلين شري and his collection of gramophone records and his collection معنى collection شيء تمام مجموعة دي سي دمايد أما يعني ألابتي of gramophone records أنا ريكوردات دقال لك الشديد اللي دقيستها collection واحدة أوركا وكلام صورينتا لكن collection of gramophone records جماعات بشيء اسمها مجموعات روي نيكلا spent وكل مية تيبات كدقيسالك a lot of money لعق بدن records ريكوردات he bought وحي century 1 or 2 أما لبن new records every week كسته he never went متجن أبد كي to the cinema or أمت في تياتر he stayed وحي اسكتوش إيدي بعد كدرسات هم قريجة every evening قلب كسته and listened إيدي بعد كدرسات music ودقي سنشري he often انت بدل lent وحي سنشري أما ماني سنشري records هذا to his friends أصحاب تيسة sometimes مركا غير كنا they kept them ويسكاه سنشرين انت كتتاتينا كدرسة they kept them ويسنشرين he lost تبنوح كل مية records بدن in this way هبكن تمام في علة واحد نوشي المركز simple past tense special difficulties كنا والله يعني تركيبه إنجليزي كميدا أو اسكميدا special difficulties he lent me a book بأمانيسية وباراجراف كواد لاين كشنات أيقول تعالى instead of saying هل كان كورن line he lent me a book بأمانيسية we can say واحد نديه كرنا he lent a book to me وحرف شرط بنسوق قلين كرنا مفعول كي ورنا ونسوق تنبيسين كرنا مركز ويقول مركز he sent me وحي يقول خرج he sent me وحي يصدر a card حبط بوسكارة مثلا he sent a card to me card بيصدر معلم اسمه بدلين لكن ترتيب هو يسبد شيء okay he passed me وحي يسوق قدبيه the salt عسبدي he passed the salt to me عسبدي أنا يسوق قدبيه she bought me a tie حبط tie يسوق يبسي قبل دي كانسا she bought a tie for me اشترت وياه واحد يسوق يبسي a tie معناه قرحت بيسوق يبسي لي for لي أنيك
she made me a cake xabad cake ay samaysay she made a cake for me she made a cake for me sidaas oo dhanaysa markaas xabad cake aniga ay samaysay labada tarkiib waa isku macno laakiin tartiibtu way kala duwan tahay mid xarfi jar baa ku jiro mafcuulkii horeeyay labada ayaa la soo dambeysiyay laba mafcuul bay markii hore lahayd oo mafcuuleyn bahay he lent me a book midna wuxuu ahaa direct object midna indirect object ka direct object waa ka shayga ah jeer dambeeya indirect object-guna waxa weeyaan ka qofka sheegaya ee horeeya way access or ladies five for each mid kasto kamid of the following sentences wadaha soo socda of the following sentence wadaha soo socda in a different way tariiq kan ka duwan macnaheedu waxa weeye haday ta dambe xisaabtu la mid tahay tooraad bedelaysaa haday toorad tahayna tan dambe baad bedelaysaa okay that officer he paid the shopkeeper some money and marka he paid some money to the shopkeeper hadoo fiirso he paid some money to the shopkeeper he handed me wuxuu lacag ayuu siiyay ninkii dukaan wala ahaa he handed me wuxuu soo gudbiyay the price jaisadii marka he handed the price to me the waiter ninkii mudarabka bought a bottle of beer quraarad beer uu soo iibiyay inagu ma dhiiri kalina beerka yani diinteena kuma jirto oo waa la xaaraantinimeeyay markaas be careful baynana xadaar iska jira the waiter ninkii mudarabka brought wuxuu keenay bottle of beer quraarad khamriga to the man ninkii uu geeyay maxaa the waiter brought the man brought a bottle of beer he sold all his books to me the man bugaagtiisii uga iibiyey markaa he sold me wuxuu iga iibiyey his books bugaagtiisii the shop assistant chose wuxuu ii xulay some curtain material for me markaa waxaa the shop assistant chose me wuxuu ii xulay some curtain material daahyo qurux badan some curtain material curtain waa daaha he did me wuxuu ii sameeyay big favor markaas he did wuxuu ii sameeyay big favor ana favor weyn buu ii sameeyay for me aniga she showed her husband odageedii bay tustay her new hat koofiyadeedu cusbay markaas she showed waxay tustay her new hat koofiyadeedu cusbay to her husband ninkeedii she promised waxay ugu ballan qaaday a reward abaalmarin to the finder qofka hela markaas she promised the finder ninkale waxay ugu ballan qaaday a reward abaalmarin he gave his son wiilkiisii wuxuu siiyey some advice waxoogaa tala ah marka he gave advice to his son his uncle adeerkii left him wuxuu uga tegay some money qadar lacaga marka his uncle left some money for him qadar lacag uga tegay he is teaching English to us Ingiriisigu noo dhigayaa marka he is teaching us English luqadda Ingiriisigu na baraya I bought this bunch of flowers for you I bought you waxaan kuu soo iibiyay on support waad ka tagaysaa I bought you waxaan kuu soo iibiyay this bunch of flowers xidhmadan ubaxa bring that book to me please fadlan buugga ii dhiib maxaad oranaysaa markaas bring me that book please he offered me wuxuu ii siiyey cigarette xabad sigaara he offered a cigarette to me read me waxaad ii akhridaa the first paragraphka ugu horeeya ama faqradda ugu horeysa read ii akhri me aniga read the first paragraph to me I've ordered some soup for you maraq baan kuu dalbay I have ordered you waxaan kuu dalbay soup maraq I owe him waxaan ku leeyahay a lot of money lacag fara badan I owe a lot of money to him pass the mustard macnaha macmacaanka u gudbito your father aabaha marka pass your father aabaha u gudbi the mustard macmacaanka the mustard waa macmacaanka ama labaniyada ayaa la yiraahdaa mustard okay waayahay waa tahay wada aragtaa markaas labada nooc ee construction waa isku macno labada tarkiibood waa isku macno laakiin tartiibta ereyada loo dhigay waa la kala horeysiiyay waxba iska bedelay marka only wuxuu baa kala duwan the word order tartiibta ereyada laakiin xaqii macnuhu ismu bedelin tarkiibtu baa la bedelay way markaas halqadeeni saddexaad baan leeyahay halqadeeni saddexaad ee buugeenan practice and progress silsilada new concept kana kamida halkaas ay noo joogto ومعلم نور أو إذن الله السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته